halkan aan socdaa waa xeradii guud ee sunta ayaxa lagu keedin jiray sunta ayaxa lagu dilayo waa kombas badan waa dhul weyn oo ballaaran halkaas shayda waxa ka muuqda waxa weeyaan halkii lagu keedinayay sunta oo meelaha khatar ah looma dhawaan karo dadku halkaas ma galaan halkan waa laami oo wada toos soo gasha oo laamiya dhulkan weyn ee loogu talagalay sunta ayaxa دور عبد الرحمن قبتني وحوي قبته أيها أي ثالث دوّدا صح دوّدا لقبوا فيها أيها مركب وطن كل شو halkan waa guriyihii ay gelayaan shaqaaluhu wadadana waa tii soo galeysay lagu talagalay gaadiidka qaadaya inay ka qayb galaan la dagaalanka ayaxa ay mariyeen صح waxaan ku weydiinay horta dhinkan aynu daawanayna waa master guuleed waxa aan kula kulanay meesha inkastoo meeshu aanay meel shaqeynaysa ahayn laakiin si nasiib wanaag haddana waxaan kula kulanay inuu naga warsiiyo guuleed waxaan ku weydiin karnaa imka ma shaqeysaa meeshu horta waqtiga kan aynu imika joogno ma shaqeyso laakiin se hubkii amba waxyaabihii loogu talagalay in lagu dagaalamo ayaxo way yaalaan oo ay noo siifo waxay nagu talagalay in haddii aynu dhaqaale ku filan helo aynu sameeyna biidbillah dawooyinkii suntii way yaalaan oo heelkana lagu talagalay oo lagu diiray qaybta waan arkayaa inay dhul ballaaran tahay imka in maladan soo dhex soconay ilaa intan si gaara maxaa loogu dayray ee halkan guuleed ku jira horta halkan waxa ku jira oo si gaara loogu diiriyay يعني waxa weey qalabkii amba hubkii amba dawadii iyo waxyaabii loogu talagalay in lagu dagaalamo ayaxa ayaa halkan aynu arkana jiinkadan hoosteeda ku yaala sidaa daraadeed waxa loogu talagalay in deyr labaad loo sameeyo si ay dadku dhaxgelin oo ina suntu wax u yeelan waayo suntu waa halis wax u yeelaysa imika waxaynu arkaynay markaan albaabka soo galayay meelo darooshimo sameeyo dadku macnaha uu qaadi karo mar haday suntu waxa la yiraahdaa abid kama baxdo biyaha tolo malislada saameyn bay ku yeelan kartaa suntani mar hadii aan meeshii laga rarin deegaankiyo daadadka qaadi karo oo deegaankan way saameyn kartaa bulshadana way saameyn kartaa horta alxamdulillah rabbil alamin dawladana cusub ayaa sameysay deerkan adag laba deerna beenoo sameysay inaad arkaysay imika mooye mid waa ka midna waa kan labadu waa difaac يعني بيهو إنه ليه الخوجة بلا ديديه مت خلاص تحب كشيء مركز دفاع عندك بلا حتى أفر وي وأفر دير وي ومن شينك تقوس يالله مركز عندك بلا ولا لي هالكاية واحد كويتي حتى واحد صور أيام إما كنا صور أيام صنتي بقى وأجد لفتي دي ولي من أبا هنينا إنه هب إنك لفتي وحي هيدا مركز هراء ساق هذا نقلب لقى حدا شرته إما كلفتي الحمد لله وحن شاء الله إنه نصور صعب بدن وقبحنا ويفرض إن نقلب كي نحلنا هنا أينان هيسن مركز واسدة awood imika lagu munaafacadsado oo laga faa'iideysto ma jirto baad islaanahay waan maleynaya imika Soomaa dabcan bay way jirtaa waayo waxa jirta in wadanada caalamku amba wadamada horumaray markaynu waxyaabaha noocaas aragno iyagu waxay noo keenaan diyaaradaha laakiin se qalabka amba suntayna ka haysana inagu ba diyaaradaha ku shuban sida daraadeed halkan waa istiraatiijiyad laga qaado sunta marka waynu u baahanahay xaruntan waxay ahaan jirtaa la yiri meel looga soo gurmado geeska Afrika la dagaalanka ayaxa saas meetay xaqiiqatan way jirtaa mar way ahaan jirtay
laakiin seemika de waa wadan baabay oo wadan la burburiyay waa wadan cadow dadkiisa cadow ilaahay uga dhigay insha Allah waxaan rajaynaynaa in dawladaha soo socda ay noqdaan kuwii soo celin lahaa sumcadii iyo karaamadii xaruntan lahayd ee looga duuli jiray amba lagala dagaalami jiray ayaxa ku dhashay Geeska Afrika oo dhan kadib markii dawladda Soomaaliya burburtay asliyan wuxuu ahaa ururka IGAD mid loo aasaasay oo u samaysan la dagaalanka ayaxa laakiin imika mar haday dawladda Soomaaliya burburtay ayax la dagaalana aanu jirin mid siyaasadeed buu isku bedelay ururkii Soomaaliya waa dhabo taasi waa kama qarsoon waad ogtahay in ururka IGAD imika noqday urur siyaasadeed Geeska Afrika wada leeyahay laakiin waxaan rajaynayaa asaaskiisa laakiin wuxuu ahaa ayax insha Allah waxaan rajaynayaa inuu asalkiisa ku shay irjicil asliba Soomaalidu tiraahdaa quraan baa ilaahay quraankiisa ku sheegay marka hawsha ayadana waxaan rajaynaynaa inuu asalkiisa ma macnaheedu yahay halka la arkayo imika shishe dowrka dayray ka soo sokeeyaan jiingadaas saaran tahay meel laga galaa ma jirto oo run ahaantii aad baa loo adkeeyay sababtoo ah sunta awgeeda taala waa meel khatar u ah bini'aadanka lama geli karo sababtoo ah waxbay yeelaysaa sidan waxa loogu xafiday si aan loo gelin oo loo ilaaliyo oo intaasoo dayr la sax dhigay oo laga ilaaliyo dadka laguna taliyo dadka inaanay gelin meesha waxa runaadu ballaaran